Muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa 5 shay oo ay tahay inaad la imaado si aad u beddesho nafsadaada. Meel ku qoro kuna dhaqan. Waxaan kuu ballan qaadayaa hadduu Alle idmo inaadan sanad dambe ka qoomamayn marka uu dhamaado. 1. Raadi macnaha noloshaada. Waqti ku qaado isku dayga ah inaad kala saarto waxyaabaha noloshaada muhiimka u ah iyo waxa kale iyo weliba sababta ay muhiimka ugu yihiin. Waa maxay waxa aad doonaysid inaad ku guulaysato nolosha? Waa maxay riyadaadu? Maxaa kaa farxiya? Micnaha noloshaada aad ka leedahay ayaa ku siinaysa ujeedo, waxayna dejinaysaa jihada sidaad u rabto inaad ku noolaato noloshaada. Haddii noloshaadu ay noqoto mid macno la'aan ah, waxaad ku dhammayn doontaa noloshaada inta ka hartay iyadoo aan ujeedo lahayn, adigoo aan lahayn jiho aad u socoto, ama sida xayawaanka oo kale iska soo kaca iska cuna socdana. 2. Qor riyadaada. Markaan caruur ahayn, waxaan ahayn kuwa riyooda maalinka oo dhan. Waxaan ku xildheereen muujinta waxa aan rabno inaan noqono marka aan weynaano. Waxaan aaminsanayn in wax waliba suurtagal tahay, oo haddii midkeena oo yar la weydiin lahaa maxaad rabtaa inaad noqoto mustaqbalka, wuxuu sheegi lahaa riyadiisa asaga oo aan cabsi yar xitaa ku jirin. Balse marka aan ku soo biirnay da'da waaweyn, waxaa lumay awoodeynii aan ku cabiri lahayn riyooyinkeena, oo waxaan bilaabnay inaan isdareensiino in ay suurtagal ahayn inaan gaarno riyooyinkeena. Qoritaanka riyadaada ayaa ah habka ugu fiican ee aad ku bilaabi karto rumaynta riyadaada mar labaad. Marka aad aragto riyooyinkaaga maalin waliba, waxay isu beddeli doonaan kuwo dhab ah, waxaadna bilaabaysaa inaad aaminto suurtagalnimada gaarista riyooyinkaaga. 3. Yeelo hadafyo si aad himilooyinkaaga u gaadho. Su'aal la'aan, dadka ugu guulaha badan dunida dhammaantood waxay leeyihiin yoolal. Hadafyadoodu waa bartilmaameedka ay ku cabiraan natiijadooda. Dadka hadaf la'aanta ah ma lahaan karaan jiho ay ku xaqiijiyaan riyadooda. Waa sida dooligan oo ku dul cararaya cajaladan yar. Wuu dhaqaaqaa, laakiin ma jirto meel uu gaaro, misna waxay u badan tahay inuu ka faniino oo uu dhibaato kala kulmo. Mar alla marka aad ogaato waxa noloshaada muhiimka u ah iyo sida ay riyadaadu u eg tahay, waxaad u baahan tahay inaad wax qabato oo aad dejiso yoolalkaaga, kuwa muddada dhaadheer, dhexdhexaadka iyo kuwa muddada gaaban. Ka shaqaynta iyo ku dhaqanka yoolalkaaga ayaa kaa caawinaya inaad ku guulaysato riyooyinkaaga, misna aad gaarto hankaaga. Beddelidda noloshaada waxay ka bilaabanaysaa marka aad aragti cad ka yeelato waxa aad rabto inaad gaarto, kadibna la timaado ficil oo weliba kugu saacidaya inaad gaarto. Mar waliba indhaha ku hay oo habeen kasta inta aadan seexan dib u daalaco hadafyadaada. 4. Beddel caadooyinkaaga. Waqtiga iyo tamartaadu waa laba ka mid ah hantida ugu muhiimsan ee aad haysato. Dadka badankood waxay tamartooda iyo waqtigooda oo dhan ku lumiyaan waxyaabo aan macno lahayn, sida inay social media saacado badan ku dhex jiraan, inay ka walwalaan waxa ay dadka kale u malaynayaan, in ay cabasho joogto ah bixiyaan, iyo in ay isku mashquuliyaan daawashada telefishinka, ciyaaraha iyo waxyaabaha la midka ah. Kadibna waxay bilaabayaan in ay marmarsiyo ka dhigtaan waqtiga, ayagoo leh warniyo waqtiga barakadii ayuu beelay. Waxayna isweydiinayaan sababta ay u heli waayeen waqti ku filan oo ay howlahooda ku qabtaan.